السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصحابتي مالفيعنو الحمد لله. أنا كانوا في عنهاي مركبت وحانين كسو قالي أخبار دك هدا لين سو قارتي وآدي ونحتين بدن واي مركا رشك بوي حفصة قفكي كساي ilmi yaryar oo dhalinyaro isqabay ahaayeen marka cawada wuxuu ku soo qoray rashka twitterkiisa waa kala tagnay ani iyo xafso maanta wixii ka bilaad wadaashay waaye aada ugu naxay wallahi iyadoo asoosaas leh oo zaaid ugu naxna hadan walaashay soo fadhiisatay waxay dhahday xafsa anigu waa dhibooya maskiinta wallahi caloosha iga horis su'aalaha ku badinaysiin iidaaba noloshooda oo waqtiga ugu xumaa ugu adagay marooyin anakana waa sii dhibeynaa su'aalaha ku dawadnaa calafka markii la isguursado maxaa la isku guursado ma lahmo markii la isfuro maxaa dadka loo haystaa calafaa dhamaaday dad badan waxay dhahayaan wixii aawadeen been leema ahaayeen been ma noqon karto saas dhan qof wax u jiri kara ma jiro dad fiican ahayn ma sha Allah isku fiican haddana calafkiya dhamaad way kala tageen gabarta marka dhibka laga daa'iyo wiilkaba calaf waa dhamaadaa marka laakiin waxa kala talin lahaa dadka oo social media ku jiraan oo lamaanayaasha intii oo wax badan oo noloshooda ku soo saarin wax private life kooda ay qarsadaan ileen wax kasta ku dhixi kar dadkan waxay u maleynayaan intii wax dhixi karin waa la saaysanaalay marka waxa u roon intii private life kooda ee gooni ka dhigtaan marka waxa dhahaa dadkaanaytan ilaahay qalbigooda u qaboojiyo hadii calafkooda wali isku dhiman yahay ilaahay isku soo celiyo hadii ay kala dhamaadeen meel kale qeyr leh aan u rajeyna marka asxaabteed intaan la soo wadaaga rabe wixii aan maqlo dhagiin in mihiyo yani wixii aan arko oo cawad hadalkaas cusub aad iyo aadna ugu xumnahay wallahi furitaan waxa la wixii oo ilaahay oo xalaal laakiin ilaahay agtiisa looga nacban yahay waa shaydaankan ku farxay marka cawada shaydaana faraxsana marka ilaahay burcata isku mari qalbigooda intaas aan sheegi rabe مع سلامة يا أصحاب تواني سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.